dowlad goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay inay joojisay guud ahaan wada shaqeynta ay la lahayd dowladda federaalka ee Soomaaliya inta laga heshiinayo arrimaha isku khilaafsan yihiin labada dhinac. Qoraal ku qoran afka Ingiriiska ee dowladda Puntland u dirtay beesha caalamka iyo dalalka danaya Soomaaliya ayay ku sheegtay inay joojisay dhammaan arrimaha ay ka wada shaqeynayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen dib u eegista dastuurka, qorshaha amniga qaranka iyo hanaanka doorashooyinka ee dalka 2020. Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in aanay aqoonsanaan doonin dhammaan shuruucda ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka iyo xeerka cashuuraha dalka oo ay sheegtay in aan lagala tashan. Puntland waxay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqday inay isugu yimaadaan shir kale si heshiis looga gaadho qodobada salka oo ah khilaafka labada dhinac, iyadoo dowladana ku buuraysa inay ku dhaqanto dastuurka iyo in ay ilaaliso heshiisyada ay hore ula gashay dowlad goboleedyada oo ay ka mid ahaayeen in laga wada tasho arrimaha masiiriga ah. Dowlad goboleedyadana waxay u soo jeedisay inay adkeeyaan iskaashiga, wada shaqeynta iyo xoojinta xiriirkooda iyo inay yeeshaan kulamo joogto ah ay arrimahan ku xoojinayaan. Cabdirasaaq Cismaan Aadan, codka Bariga Afrika.